بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed maxamuud axmed deenka kuliyadda development studieska ee jaamacadda Armas halkan waxaan idinku sharaxi doonaa kuliyadda development studiesku waxay tahay waxyaabaha aad ku baran doonto iyo mustaqbalka marka aad ka qalin jabiso sida ay ku anfici doonto kuliyadda development studiesku waa kuliyad la iskugu keenay xirfado kala duwan in loogu talagalay ardaygu ku barto haddii noqon lahayd dhanka dhaqaalaha maamulka hogaaminta iyo maareynta mashaariicaha kala duwan ee muhiimka u ah hagidda nolosha shaqada aynu haatan ku jirno waxyaabaha aad ku baran doonto inta aad kuliyaddan ku jirto waxa kamid ah xirfadaha sida maareynta iyo maamulka iyo qorsheynta mashaariicaha kuwaas oo ay ku shaqeeyaan ururo kala duwan oo local iyo international ba ah iyo sidoo kale hay'adaha dawladda ee kala duwan waxaad sidoo kale ku baran doontaa xirfadaha ay ka mid ka yihiin entrepreneurship oo ah sida ganacsiga loo bilaabo loo samaysto isla mar ahaantaana loo maamulo waxaad sidoo kale ku baran doontaa xirfada ay ka mid yihiin policy analysis oo ah tacliiqinta siyaasadaha kala duwan haday noqoto kuwa dadweynaha iyo kuwa organizationadaba waxaad sidoo kale ku baran doontaa xirfado ay ka mid yihiin research taasi oo aad ka heli doonto xirfad qoto dheer oo ka anfici doonto mustaqbalka inaad noqoto qof researcher ah haddii aynu eegno dhanka marka aad qalin jabiso kuliyaddan aad ka qalin jabiso kadib meelaha aad ka shaqayn doonto waxa ugu waaweyn ururada caalamiga ah iyo kuwa localka ah haday noqoto local NGOs iyo international NGOs sida United Nations, World Bank iyo ururada dawliga ah ee wadankeena waxa kale kamid oo ka shaqayn doontaa hay'adaha dawladda government agencies ka qaybaha kala duwan sida wasaaradaha iyo hay'adaha kale ay ka kooban tahay xukuumaddu taasi oo ka shaqayntooda ay ku saamaxayso xirfadihii kala duwan ee aad ku soo baratay intii aad ku jirtay kuliyaddani waxa kale oo aad ka shaqayn doontaa research and think tanks oo ah meelaha cilmi baarista lagu sameeyo iyo goobaha lagu shiilo fikirka dadka aqoon-yahanka ah soo kuliyaddani waa kuliyad loogu talagalay in ardayga ka dhisto dhinacyada kala duwan ee nolosha isla mar ahaantaana la iskugu keenay xirfado kala duwan oo lagu bixiyo kuliyadaha kala duwan ee ay jaamacaddu ka kooban tahay soo haddii aad nagu soo biirto waxaad fursad u heli doontaa inaad ka dhisnaato dhinacyo kala duwan isla markaana aad hesho xirfado muhiim ah oo noloshaada ku anfaca isla markaana ku gaarsiiya riyooyinka aad doonayso inaad gaadho haddii ay noqoto mid aad noloshaada ku horumarinayso mid aad bulshadaada ku horumarinayso iyo mid aad doonayso inaad wadankaaga ku horumarisaba soo gacmo furan ayaan kugu soo dhaweynaynaa waxaan ku leenahay kaalay oo nagu soo biir nala baro xirfadaha loogu talagalay in lagu kobciyo qofka isla mar ahaantaana kuu saamaxaya in riyooyinkaaga iyo higsiga aad nolosha ka leedahay aad ku gaari lahayd gacmo furan baan kugu soo dhaweynaa kaalay oo nagula soo biir kuliyadda development studieska ee jaamacadda Armas